بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا cashiradeenii conversationka inoo socday halkaad ka daawanaysaan aad kala socotaan waa channelkeena ah 101 conversation anigana waa ustaad maxamed xared waxaan qaadanaynaa hadduu awood la raalli ka noqdo dialogue-gii saddexaad oo ah formal introduction haddii aan soo qaadanay formal iyo informal greeting waxaan qaadanaynaa introduction dad la isbaraayo ama introduction isu sameeyna hordhac ama la isfahansiin hebel lagu soo dhaw hebel wax nooca ah so conversation kan wuxuu u dhaxayn doonaa hadduu alla awood la raalli ka noqdo 3 ilaa 4 qof waxaan ku bilaabaynaa marka waxaan leeyahay waxa kulmay Muna Ali Farah 3 qof Muna Dr. Mali Mr. Ali iyo Dr. Farah Muna waxay tiri Mr. Ali, Aliyo, I would like you to meet. waxaan jeclaan lahaa inaad maanta la kulantid ama aan ku baro ama aan kula kulansiiyo Dr. Farah, Dr. Farah. Mr. Ali, Mudane Ali, I would like you, waxaan jeclaan lahaa adiga maanta to meet inaad la kulantid Mr. Farah, Dr. Farah, sorry, Dr. Farah. Ali wuxuu yiri It's nice to meet you, Dr. Farah. It's nice to meet you, Dr. Farah. Aad ay u wanaagsan tahay maanta inaan kula kulmo Dr. Farah. Then Farah said, pleasure to meet you too. Pleasure waxaan dhihi karaa inaad shayga ku faraxsan tahay. Aad baan ugu faraxsanahay to meet you inaan adiga maanta kula kulmo too. Adigana inaan kula kulmo maanta. Then Mona said, Dr. Farah is an economist. Dr. Farah is an economist. Halkan marka waxaad ka arkaysaa inaan adeegsanayno articleski aan soo qaadanay grammarkan ku soo qaadanay dadka ila socday. An economist waa vowel. So wuxuu yiri Mona waxay tiri Dr. Farah waa economist. Economist waxaa la yiraahdaa dhaqaaliyahan, qofka dhaqaaliyahanka ah ama ku takhasusay khubaraha dhaqaalaha. He just finished writing a book on international trade. wuxuu hadda bogay ama uu hadda dhow ka farxashay qoritaanka buugga ka turjumo ganacsiga caalamiga international trade waa ganacsiga caalamiga. Dr. Farah is an economist. Dr. Farah waa dhaqaaliyahan. He just finished waxay hadda dhow uu ka baxay ama inuu qoro ama qoritaanka buug uu hadda dhow gabagabeeyay buuggaas on international trade oo ka hadlayo ama uu ku xusay ganacsiga caalamiga. Then Mr. Ali wuxuu yiri marka waa calaamatu tacajub waa shayasha yani qofka bilaadanka uu markii qofku inuu shaygan la tacajubo kale wuxuu yiri that's my field taasi waa field-gaygi yani micnaheeda waxaan ka fahmi karnaa Farahna inuu maxaa la jiray Alina inuu Farah la field yahay. Field macnaheedu waxaan dhihi karnaa ay isku takhasus yihiin. Wuxuu yiri that's my field too. Taasi waa field-gayga ama waa howlahaygi waaye. Wuxuu yiri aniga waxaan u shaqeeyaa for the United Nation. Waxaan u shaqeeyaa United Nation waxaa loo soo gaabiyaa UN. He said wuxuu yiri waxaan u shaqeeyaa for the United Nation. UN-ka ayaan u shaqeeyaa. Yaa dhahayo Ali. Farah marka xasuusa ku soo dhacday maadaama uu yiri Mr. Ali inuu u shaqeeyo United Nation-ka. Farah markaas xasuusa ku soo dhacday oo Ali wajigiisa ku cusub laakiin magaciisa kuma cusbo. Aan aragna haasee ku dhacday sheekada ayada. Then Dr. Farah wuxuu yiri in the health program qaybta caafimaadka ama barnaamijka caafimaadka United Nation-ka waxaad kala shaqeysaa in the health program qaybta caafimaadka by any chance haddii ay macquul tahay ama haddii aanan khaldaneen. Wuxuu yiri Mr. Ali yes dabcan how did you guess sideed ku qiyaastay how did you guess sidee did you adiga guess marka waxaa la yiraahdaa guess waa qiyaasitaan. Okay qofka inuu shaygan iska qiyaaso qofka banaan gadaal ka hadlay waxaan yiri waa gabar ama waa wiil inaan qiyaaso shay qofka hadlay. Okay so wuxuu yiri how did you guess
maadaama uu yiri I work for the United Nation oo ku maqli jiray qof United Nation ka u shaqeeyo oo yiraahdo cali faarax wuxuu yiri ma qaybta caafimaadka in the health program ay ka shaqeysa hadayna ana khaldan ama macquul tahay wuxuu yiri ha how did you get sidad ku qiyaastay then faarax wuxuu yiri I have aniga read waxaan akhriyay your article waxaan dhigi karnaa maqaal ama dhambaal qofka article-ka uu qoro buugaagta qofkan uu qoro oo ka turjumo waxyaabo fara badan hawlihii uu qabtay iyo report uu diyaariyay school an article so I have read your article on mother and child wuxuu yiri waxaan akhristay maqaal ama dhambaal adiga aad qortay oo ka hadlo hooyada iyo dhalaanka mother and child mother hooyo child no dhalaan hooyada iyo dhalaanka they are excellent uu yiri markan waa absolutely waa heer sare uu yiri dhambaalka uu qoray faarax cali hore uu soo akhriyay aqoon umuusa lahayn faarax laakiin maadaama uu hore u akhriyay hadda xasuusa ku soo dhacday oo wuxuu yiri warninkii United Nation u shaqeynay health programka ka shaqeyn jiray ee cali la dhigi jiray waaba kan maanta soo wuxuu yiri marka I have read an article on mother and child they are excellent waa heer sare excellent waxaan dhigi karnaa absolutely jaydan excellent tani kula dambe xiisa leh waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo hadda muuqaal ka heshay fadlan like sar comment ka soo bixi wixii tala iyo tusaale nagu wadaagayso then subscription ku waa xaggaaga waxa kale marka dhiirigelin inaad sii share gareyso si uu ku gaaro asxaabta walaalaha Soomaaliyeed si ayagana ay uga faa'iideystaan baqiil ha noqon ha isku koobin ha laga wada faa'iideyso share inta aad la gaarto. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.